markan oromadii hubkooda ay la soo baxeen jabahada hubeysan ee Oola waxay ku dhawaaqday war weyn oo ka dhan abi ayaa wadnaha la jaray duleedka Addis Ababa ayaan joognaa waxaan diyaar u nahay inaan dagaalano 10,000 oo askari in ka badan ayay soo bandhigeen ciidankii ugu badnaa ayay bulshadu la wadaageen haddaba muuqaalka ugu dambeeyay oo ay warbaahintu la wadaageen jabhadan iyo ciidamada tababarka loo soo xiray ayaan saxabiyaal eegi doonaa suuragal ma tahay ama warka ay ku sheegeen inay ku sugan yihiin duleedka Addis Ababa maxaa ka jira iyana falanqeyn gaar ayaan ku sameyn doonaa halka muuqaalka TV soo dhawaada maalmahan waxaa aamusnaa oo aan nabad ka jirta deegaanada Oromada inkastoo jabhadu ay la soo baxday hal mar in tababar ay u soo xirtay 10,000 oo askari kuwaas oo raba inay qabtaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa jabhadan muuqaalkii ugu horeysay ay soo bandhigeen waxaana ay ku sheegeen in ciidamadan ay u diyaariyeen inay qabsanayaan magaalada caasimadda ah ee Itoobiya kuwaas oo ka badan 10,000 oo askari hubkooda ay wataan saanad military ay ku hubeysan yihiin abi markan wadna xanuun ayaa u soo hoyday maadaama jabhadan hubeysan ee waa la yiraahdo Oola ee Oromada ka dagaalanto ay ka duwan tahay jabhadaha kale oo ay gaabiga ku hayaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa afayeen u hada jabhada xoreynta Oromiya ee Oola ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ciidamo fara badan kuwaas oo qalabeysan isla markaana haysta hubka ugu waaweyn ee dunida rabana inay la dagaalamaan militariga Itoobiya waa qorshe aanu caadi ahayn waana wax uusan filan abi maadaama jabhadan iyo abi kol hore wada hadal ay yeesheen wada hadalkiina uu fashil ku soo dhamaaday jabhada markaas kadib waxay gashay aamusnaan waxa ay ku maqneed ciidamo ay qorato tababar ay siiso hub ay soo degsato maanta ayayna si toos u sheegtay inay u diyaarsan tahay in ay qabsato magaalada caasimadda ah ee Itoobiya Addis Ababa Itoobiya cabsi weyn ayaa ka jirta magaaladeeda safaaradaha qaar ayaa albaabada loo laabi doonaa haddii cabsidan ay sii jirto ama ay sii taagnaato sida looga bartay shaqaalaha diblomaasiyiinta ah ee ku sugan Addis Ababa oo caasimad ah Itoobiya dhowr dhinac ayaa markan laga haystaa dhan ama xaaro ayaa ka dagaalamaysa dhanka kale Oola ayaa markan ka soo jeesatay Eritrea dhinac ayaa culeys ka wadaa Tigray mararka qaar abi ayay ku soo qeelanaysaa abina culeys gooni ayaa iska haysta Soomaalida dhankeeda culeys ayaa ka jira canfartuna si lamid ah Itoobiya xaalkeedu waa alla umuraha sahal waa ilaahu nafro oo ay u muuqato in markan xaaladuhu ay ka sii darayaan oo ay marayaan meeshii ugu adkeyd maadaama dhibaatooyin baahsan ay ka jiraan gudaha dalkan Itoobiya oo xaalado adag wajahaya dhanka kale isla Abiy Ahmed waxa lagu eedeeyay inuu bilaabay in uu argoosi ku sameeyo saraakiisha jabhadan hubeysan ee Oola isaga oo si toos ah u beegsanaya xoogagan ka tirsan ciidamadan hubeysan iyo sidoo kale xoogaga kale waxaana taasi ay ka dhigan tahay in Oola ay markan u diyaarsan tahay jabhadan inay qabsato dhul ballaaran iyada oo inta badan qayb ka mid ah gobolka Oromada maamusho waana jabhad xoog badan oo Oromo ah oo Abiy ay isku fahmi waayeen miiska wada hadalka inay wada tageen kadibna ay ku kala boodeen dhanka kale hadii aynu eegno wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa magaalada Dhuusamareeb ka wada abaabulka duulaanka kooxda Shabaab ee ka dhanka dhulkiisa maadaama uu ka soo jeedo Ceelbuur iyo sidoo kale Galhareeri duulaankan oo dawladdu ay hormuudka ka tahay ayaa qorshuhu yahay in lagu xureeyo deegaanada ay maleeshiyada kooxda Shabaab wali ku sugan yihiin ee maamulka Galmudug Xasan Macalin Maxamuud wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hoyga uu ka dagan yahay magaalada Dhuusamareeb kula kulmay odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada Galmudug iyo dhalinyaro matala deegaanada hadda lagu wajahan yahay kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamada joogtada ee wasiirku la yeelanaya qaybaha bulshada waxaana looga hadlay arrimo badan oo quseeyo xoreynta oo ay ka mid tahay in dhammaan bulshada ay wadajir uga qayb qaadato hawlgalka si dadka deegaanku ay u gaaraan horumar ay u baahan yihiin dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo gaargaar la qaatay odayaasha dhaqanka Galmudug isagoo kala hadlay sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen dagaalka looga xoreynayo shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin Galmudug madaxweynaha ayaa tilmaamay in odayaasha dhaqanku Galmudug ay lafdhabar u yihiin qorshaha ciribtirka khawaarijta shabaab isagoo uu ku adkeeyay in hormuud ay u noqdaan abaabulka bulshada wacyigelinta hogaaminta iyo garab istaagga ciidamada qalabka sida Xasan ayaa waxa uu xusay in caqabada ugu weyn ee haysata Galmudug ay tahay shabaab si looga adkaadana loo baahan yahay in odayaasha dhaqanku ay horseed u noqdaan midnimada shacabka iyo taageerada dawladda sidoo kalena ay door weyn ka qaataan ku qanacsiinta ama ka gacansiinta ciidamada qaranka in ay dalka ka sifeeyaan argagixisada cadeysatay daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa dhankoodu ballan qaaday inay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladduba ku garab siin doonaan kuna istaagi doonaan garabkooda sidii looga mir dhalin lahaa Soomaaliya xorka argagixisada kana caagan odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug waxay sheegeen in muhiimad gaar ah ay siinayaan mabda'a iyo nabadda ay u baahan tahay bulshadan
oo hadda dowladda dhexe ay diyaar ula tahay in ay ku garab siiso. Sida ay hore u sheegeen madaxda dowladda federaalk Soomaaliya, dagaalka gobolada dhexe looga saaray al-shabaab waxaa la qorsheeyay waqti kooban si koonfurta Soomaaliya looga bilaabo howlgallo militari oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada wadamada safka hore. Si kastaba, howlgalka qaybtiisa duqeynta cirka ah ayaa shalay bilowday, waxaana la filayaa in duulaanka dhulka ah uu isna maalmaha soo aadan bilaaban doono, kaasi oo kooxda looga saarayo deegaanada ay weli kaga harsan yihiin maamulkaas. Waana qorshe weyn oo lagu doonayo in looga sifeeyo khawaarijta al-shabaab goobaha ay kaga sugan yihiin Soomaaliya. Dowladda federaalk Soomaaliya ayaa saaxiibada caalamka waxay xaqiijiyeen inay ku guuleysteen in la duqeeyo 3 xarumood oo ay kooxda al-shabaab ku lahayd Galhareeri. Goobaha la duqeeyay ayaa isugu jira goob garaash ah oo lagu diyaarinayay baabuur qaraxiyo ah, goob ay kooxdu ku kaydsan jirtay hubka, iyo goob ay dhigan jireen agabka caafimaadka sida ay sheegtay dowladda federaalk Soomaaliya. Weerarkan waxa uu hordhac u yahay Ceelbuur iyo Galhareeri iyo deegaanada ku teedsan in ay shaqo xoog leh ku bilaaban doonto dhowaan. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in goobtaasi lagu burburiyay ilaa 7 gaari oo goobta tiilay, sidoo kalena la gubay keedka hubka ee kooxdu halkaas u yiilay. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay jeediyay hadalkiisa koobaad tan iyo markii uu Sabtidii tagay Dhuusamareeb. Madaxweynaha waxa uu sheegay in gulufkan ku wajahan yahay Ceelbuur, Galhareeri iyo deegaanada ku xeeran inuu yahay mid lagu dhammaystirayo wejiga koobaad ee dagaalka. Sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynaha in dhowr jiho laga weerari doono deegaanada ay weli kooxda al-shabaab ku harsan tahay. Galhareeri waxay ka mid tahay magaalooyinka ay muddada dheer ka talinaysa kooxda al-shabaab, waxayna u ahayd xarun weyn oo ay ku lahaayeen saldhigyo gaara. Si kastaba, howlgalka ka dhacay Galhareeri ayaa qayb ka noqonaya gulufka haatan ka socda gobolada dhexe ee dalka, kaasi uu hagayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xarun ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug si al-shabaabka Soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada kale ku suganba looga sifeeyo loogana cirib tiro guud ahaan Soomaaliya. Al-shabaab waqtigoodii Soomaaliya ayaa sii dhamaanaya, waxaana socda qorshe ballaaran oo lagu doonayo in lagu soo gabagabeeyo waqtigoodii waayahooda Soomaaliya, iyagoo in ka badan 15 sano dhibaato, cagajugleyn iyo sidoo kale dilba ku hayay bulshada Soomaaliyeed, iyada oo lagu xasuustay in qaraxyo waaweyn ay ka fuliyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaas oo 100 qof ay ku dhinteen. Qorshaha shabaab ee Soomaaliya ayaa isbedelaya haddii laga adkaado, waana qorshe uu hoggaan ay u tahay dowladda federaalk Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in al-shabaab laga adkaan doono sanad gudihiis, taas oo dowladdiisa marka ay 2 sano u dhammaato kaga dhigi doonto guul taariikhi ah oo ay ka gaareen maleeshiyada al-shabaab, maadaama aanu dowladda isaga ka horeysay aysan isku dayin xitaa inay qaado wax weerar ah oo al-shabaab ay ku baacsanayso. Waana waxa keenay in dowladda hadda jirta ay bilowdo qorshe cad oo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab ee ku aadan wax ka beddelka hanaanka lagu wiiqayo awoodooda, laguna doonayo in looga adkaado. Guud ahaan saxaabay halkaas aynu kusoo gabagabeynaya barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono. Nabadgelyo.